Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani ee gobolka Togdher Maxamuud Xasan Saleebaan Doob oo maanta kulan saxaafadeed ku qabtay xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Burco ayaa ka deeriyay xaaladda guud ee deegaanada gobolka Togdher. Waxaan safar ku soo maray dhawaan oo aan muddo kooban ku maqnaa sida degmooyinka Duruqsi, Dhoqoshay, Waraabeeye, Riyo Xidho, Beledhiig, Warcibraan, Nasiye, Qorulugud, deegaanka Coodanle, Qoryaale, magaalooyinkaas ayaan soo marnay. waxaan ku soo aragnay baahiyo asaasi oo ka jira deegaamada aan maanta tagay waxa ka mid ah deegaanka Coodanle male waa nation aad u fara badan mana leh wax rug caafimaad aad u fara badan baa jooga iyadoo waxaad moodaa inaanay Soomaaliland ba weligeed aanay tirin degmada Duruqsi oo kale waxa ka jira saldhig bileys male geed baa dadka lagu xidhaa mana habboona in geed lagu xidho qof maxbuus ah degmada Dhoqoshay ka dhacday in laba hooyo isku nus saac gudahood naftu kaga baxday dhiig bax markii loo waayay gaari ambalaas lagu qaado xanaanada Dhoqoshay isla bishan aynu ku jirnaa tobnaad gudaheedii runtii deegaamadu way wada qabaan baahiyaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada intooda badan way wada qabaan deegaanka Hugufo kale oo hore warbixin badan looga soo diyaariyo ka tirsan degmada Gabagabo iskuulkeedii waa baaba dabayl baa qaaday wadadiina waxa ku dhacay dhagxan waaweyn dadkaasi goodoon bay ku jiraan. waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu ka waramay xaaladda ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku teedsan hareeraha magaalada Burco. magaalada gudaheeda waxa jira dad barakacayaal ah deegaamada barakacayaashii iska daaday kale biyo ma helaan oo ay ka mid tahay kaamkan jaamacadda Burco oo ka mid yahay qolo la fogeeyay oo iyaguna aad u cabanaya la yiraahdo Abaal Muuse xaafadda la sameeyay iimaan deegaanka furfuriisayga jaamacadda Caynaashe deegaamadaasina si runtii dib weyn baa haysata dadkaasi in loo gurmadaa bay u baahan yihiin wax qabad baa nooba muuqanaynba siiba gobolka Togdher nimanka ka hadlayo. sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani ee gobolka Togdher Maxamuud Xasan Saleebaan Doob waxa uu ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland inay ku guuldareysatay buuxinta jagada barsaab ku xigeenka gobolka Togdher oo muddo ku dhow sanad aan cidna loo soo magacaabin. waxa jira barsaab ku xigeenka gobolka xataa aan xukuumaddu may soo magacaabin ma garan karayo madaxweynuhu gobolka Togdher ee inta baaxadiisu leegtahay inuu ku haleeyo barsaab kaliya inuu joogo oo ku xigeen loo magacaabi kari waayo 10 bilood miyuu ilaaway ma dambaanu kala hayn ma burcu u arkaa in barsaabku kaliya ku filan yahay qorshaha madaxweynaha ka jawaabi doona isagana xilkii mas'uuliyaddu saaran tahay. Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.